بسم الله الرحمن الرحيم دمان برنامج كان انت كسو قيب قشي وحنكو سلامة إسلامك كلن كان مانتا oo bishu ay tahay 25 maalin qamiis ay tahay waxa soo diyaarisay hay'adda horumarinta haweenka Soomaaliyeed SWDC ujeedka iyo dulucda looga hadlaayna waxay tahay waa maxay xadgudubiyada bulshada ku dhaco waa maxay doorka ama bulshada rayidka ay ku leedahay ama biliiska ku leeyahay ama hay'adaha amniga ay ku leeyihiin marka saas darteed dad qabiiriin ah halkan isugu yimid wasaaradihii dadka socdaa jooga ciidankii biliiska dadka socdaa jooga guud ahaan waxaan rabnaa inaan doodaas isla falanqeyno oo aan ka wada hadalno dabadeedna loo gudbiyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo barnaamijkan u faahfaahiyo ujeedkiisa iyo dulucda hay'addu ay kala heed madaxa mashaariicda Cabdullaahi Daahir oo SWDC oo ah madaxa mashaariicda agaasimaha gudaheeda salaamu calaykum ku soo dhawo Cabdullaahi Daahir bismillaahir rahmaanir rahiim مريم iyo teamka way maadsanyihiin SWDC marka doodeena wuxuu ku saabsanaan doontaa sida loo hortagayo tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha gaar ahaan kuwa ku dhacay jinsiga iyo sida wax looga qaban karo iyo habka hadda looga falceliyay naftirkeeda ma tahay hab ku haboon in sidii saxda ahayd looga falcelinayo marka ilaa 45 daqiiqo socon doonta oo dhinacyada dooda ka qayb galayna aan rabo qof kasto in su'aasha ku aadan iyo wuxuu ku darsan karo uu kaga hadlo anigoo nasrina dooda idin qaybinayo midda ugu horeysa marka waxaan ka hadlaynaa saameynta caafimaadka qofka ay ku yeelato kadibna su'aalaha kale la xiriira u gudagali doona marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan siiyo Maryam Axmed waa maxay saameynta caafimaadka ee tacadiyada ay ku reebaan qofka dhibka marka uu ku dhaco waxaan nooga sheekaysaa tusaale kale saameynta caafimaad ee qofka ku yeeshaan hadii ay ahaan lahayd jismiyan iyo hadii ay ahaan lahayd maskaxiyan soo dhow هذا أما فتان سرين وأنا فرح سنة برنامج كان أنا ما عندك سوق قيب قالوا إسبوعي من تكمرنا إني كهذلان سامين تعافمات كمر كلا هرتو يكون تعرف كيو كدعي يمكن جنسي مدام وياهي وكل عكرا عرور وكل عكرا رك وكل عكرا هوين عرور ترفكد وقيب سنويل يجبر marka dhibaatooyinka caafimaad marka la dhahayo waxay ku xiran tahay qofkaas marka haduu caruur yahay haduu qof weyn yahay haduu haween yahay haduu rag waa kala duwan tahay for example haduu caruur yahay waxa ku dhici karo dhigbaxa ku dhacayo shooga ku dhacayo waxa ku dhacayo maxay argagaxa ku dhacayo inuu hadli karina ku dhaceyso haduu yahay haween dhibaatooyinka caafimaadka uu ku reebayo waxay tahay shooga weelo wadaagtaa psychological problem ku dhacayo dhalmala'aan ku dhaceyso dhigbaxa ku dhacayo waxa soo dhan waxa ka sii daran oo waligeed aan ka hareen oo ku dhaceyso hadii qofkaas falka dambiga la kulantay qofkaas haweenka ama caruurta iyo qof kasto yahay haduu qabo cudurrada la kala qaado sida HIV/AIDS-ka ama oo qabo cudurrada hepatitis-ka dadkeena badan waxay ka baqaan HIV/AIDS kaliya laakiin xanuun aan ka yareen ka dib yareen jiro oo la yiraahdo hepatitis ama cagaarshowga cudurrada STI-da la dhaho oo sexual transmitted disease-ka ah isku gudbiyo galmada marka qofkaas waxa ku dhici karo waxyaabo badan haduu intaas ka badbaado waxa ugu yar oo ku dhacayo waxa waaye shock waxa ugu yar oo ku dhacayo waxa waaye stigma because waa dareemi karnaa qofka falkaas la kulmo oo ascaburnaaya ama familkiisa yaabrinba inuu meel kale aado oo dhahayo ceeb waa barnaamijkan hadaa dad la wadaagto marka qofka asaa isla hadla haduu qof la wadaagin waxay noqonaysaa inuu guri ku aruuro inuu isla hadlo inuu walwalo inuu cabsado iyo waxyaabo badan oo la mid ah waa tahay waa maadsan tahay waa ku maad celinaya haddana waxaan rabaa inaan siiyo mas'uulka nagala jooga wasaaradda haweenka horumarinta xuquuqda aadanaha agaasimaha qaybta xuquuqda aadanaha Axmed Cabdi Cumar soo dhawow midda xigta waxaad nooga hadashaa waxyaabaha ama kaalinta kaga aadan hay'adaha xuquuqul insaanka ee ka hortagida tacadigan tusaale kale marka wasaaraddu uu soo gaaro fal la xiriira in dhibaato jismiyeed ay ka dhacday magaalada sidee bay uga farceliyaan maxay se go'aan ah oo ay qaataan inta aan u guda gelin booliiska iyo kaalintooda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aad u mahadsan tahay waxaan ku faraxsanahay inaan barnaamijkan maanta qayb ka ahaado amba aan ka soo qayb galo oo aan u arko barnaamij qiimo badan oo bulshada loogu adeegayo
ka hor intaanan ka jawaabin su'aasha waxaan rabaa inaan waxyar aan idinla wadaago tacaddiga muxuu yahay tacaddi yacni muxuu yahay tacaddiga waa habdhaqan kasta oo ku salaysan quursi juurfal xadgudub oo ka dhan ah jandarka gaar ahaan haweenka ayaa la yiraahdaa tacaddi sida yani liidid aflagaado faquuqid takoorid in loo arko yani qiimo hoose xuquuqdeeda oo la duudsiiyo amba xuquuqdiisa oo la duudsiiyo xorriyadeeda oo la xadido intaas ayaa waxaa la isku yiraahdaa tacaddi intaas in ka badan oo yani ka dhan ah jandarka qaybihiisa gaar ahaan yani haweenka marka tacaddigaas oo noocyadaas leh kaalinta iyo waxyaabaha kaga aadan bulshada iyo hay'adaha xuquuqda aadanaha awalan waxaa la rabaa yani hay-adaha loo yaqaano law enforcementiga in yani ay ahaadaan hay-ado oo yani shaqadooda iyo iskaga qabkooda iyo yani u adeegidda dhanka yani dadka ku dhaca tacdiyada jandarka gaar ahaan yani haweenka iyo caruurta hay-adahaas inay isku xirmaan hay-adahaas waxaa kow ka ah yani booliiska hay-adaha xuquuqda aadanaha oo hadda yani nidaam ahaan iyo qaab dhismeed ahaan yani qaar ay maqan yihiin haddana baahida ay daboosho run ahaantii yani wasaaradda haweenka yani booliiska iyo garsoorka iyo wasaaradda iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha gaar ahaan yani kuwa bulshada rayidka oo isku duuban oo yani si firfircoon u shaqeeya ayaa ah waxyaabaha yani ka hortagga suurogelin karo ee xadgudubada iyo tacaddiga iyo juurfalka ka dhanka ah haweenka iyo caruurta waxyaabaha yani yaray kara amba ka hortegi kara fal yani dembi markasta waa dhacaa waxaa laga yaabaa dalal badan oo naga horumarsan inuu yani dhibaatada noocan oo kale ay ka jiri karto haddii ay dhacaan marka waxaa la yiraahdaa de hay-adahaas oo aan soo sheegay oo isku duuban in yani ay waa kaas garab istaag iyo qaanuunka marsiintiisa iyo cadaaladda marsiinteeda iyo ninka mudnibka ah amba yani tacdiga geystay sidii loo marsiin lahaa yani qaanuunka iyo nidaamka qofkii tacadiga ku dhacayna ficlan oo u heli lahaa yani xanaano u gaar ah yani dad badanaa bixiya oo hay-ado badanaa bixisa oo idinka aad ka mid tihiin SWDC iyo hay-ado kale ayaa bixiya iyo sidoo kale dawladda nafteeda marka asigana inuu helo xanaano iyo daawo iyo waa kaas dejin iyo inuu helo marka inta aan ku soo gaabiyo insha Allah taala Ahmed wasaaradda haweenka oo kale marka ay soo gaaraan falalka tacdiyada inkastoo tacdiyo badan ay sanadihii dambe ka dhacayeen dalka oo aysan jirin ilaa hadda tiro koob sax ah oo lagu sameeyo oo dhihi karo intaasba boqolkiiba waxay leeyihiin tacdiyada dhaca wasaaraddu falka ay samayso markaas kadib ma yahay mid u dhigma in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay helaan jawaabta ay ka sugayeen tacdigii loo geystay haweenka degmada waa beri hay-ado badanaa tababaro badanna siiyeen khaasatan hay-adan SWDC haddana waxaan u gudbinaa annaga aan la xiriirnaa hay-adaha amniga ayaan la xiriirnaa sida booliska oo kale ayagaan u gudbinaa ayagana isla mar ahaantaas jawaabay ka bixiyaan badanaaba hadda intaan annaga la kulannay degmo waa beri ahaan
falal badan ka dhacayaa jirto anaga hay-adahan la u gudbinaa booliska hadduu ilaahay raalli ka dhigo saasay xaalka uu yahay markaas booliisku waxaa nagala joogaa mukhtaar maxamed calaale oo ka tirsan qaybta baarista ee booliiska mukhtaar inkastoo ay mararka qaar magaalada ka dhacaan tacdiin ka baxsan xuquuqda aadanaha qaarkood laga yaabo inay geystaan ama amniga qaar ay geystaan dad kale oo aan iyagu xilligaasi si wanaagsan u xisaabtamayn idinku xogaha idiin soo gaaray la xiriira tacdiyada bini'aadanimada ka dhanka sidee isla markiiba wax uga qabataan maxay tahay se waxyaabaha ka qabataan waa mahadsantihiin dhammaantiin kasoo qaybgalayaasha sida agaasimaha wasaaradda dictooreysada maama maryan oo SWDC ka socoto iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo saxaafadda dhammaantiin waxaa idinku salaamaha salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu salaan kadib haddii aan gudagalo jawaabta su-aasha la weydiiyey annagu markii ayna soo gaaro riboodkaas ah in tacadi dhacay annagu kow waxaan raadinaa qofku dhib ku gaaray qofkaas markaan la kulanno waxaan weydiinaa dhibku goor wakhtiga uu soo gaaray haddii 72 saacadood wax ku eg uu yahay oo ama ka yar waxaan siinaynaa warqad rifeerta la yidhaaho si dhibka gaaray loo caddeeyo waxaan aadnaa 2 isbitaal midkood Kaysanay iyo Madiina waliba Madiina ay u badan tahay maadaama hay'adda SWDC ay qayb ay ku qaabisho samaysay meeshaasaan geynaa wixii laga helay oo jawaaba ayagaa soo qoro haddii dhibku uu weli dambeeyo raadkiisii sida ama shahwadii ama dhaawacyo ay dambeeyaan oo dhakhtarku soo sheego isla markaas waxaan raadinaa eedeysanihii dhibkan geystay si sharciga loo waafajiyo laakiin haddii la yidhaaho waqti hore u dhacay wax raada ma jiro haddii la yidhaaho waa markaas inaan hay-adda ku wareejino dhahno bal qofkan waa kulley bulshadii uu ku dhex noolaayay iyo kuma sii noolaa karo sababtoo ah walaasyo badan oo kala kulmaayo iyo caafimaadkeeda hay-addan ku wareejinaa maadaama qofkan annagu markaan waxaana hay-adda ugu hooseysa oo ka soo bilowdo cadaaladdu ka soo bilaabato annagu markuu kiisku yahay tacaddi oo kufsi iyo wax ku saabsan yahay waxaan wax ku geyno waa natiijada oo dhakhtarku soo sheego xataa hadduu asagu qirsan yahay leeyahay waa kufsaday ma shaqaynayso sababtoo ah dhakhtar garsooru wuxuu ku weydiinaa dhakhtar ma soo cadeeyay in dhibca marka annagu waxaan wax ku dhaqaajino waa warqadan rifeertada ah marka haddii taas soo bixi weyso ayadan waxaan ururo kale ayaan ku wareejinaa si caafimaadkeeda iyo loola soo xalkeeda mukhtaar marka ma dhacdaa in mararka qaar kiiskii lagu guuleysan waayo sabab la xiriirta baaristii ama kiiskii jawaabtii la rabay in laga bixiyo oo dhacda darteed tusaale kale ama amnigoo la soo waco oo gaabiyaan ama dadkii shaqada ku lahaa oo aanan degdegin ma dhacdaa mararka qaar dacwadu fududaato ama kiiska saas lagu waayo haddii kiis sideedaba uu dhaco in lagu guuleysto waayo sababta koowaad haddayba jirto waxaa u sabab u noqonaya qofku dhibka soo gaaray sababtoo asiga qarsanaya kiis sideeda markuu dhaco baara koowaad waxaa ka ah qofka dhibka soo gaaray sababtoo qofka dhibka u geystana asiga yaqaano qofka dhibka soo gaarayna asaga waxa gaaray inuu sheego asaa laga raba annagu ma ogaa karno inta guri kasta 3 milyan oo xamar ku nool tusaale Muqdisho markaan ka hadlayo guri kasta qof buliisa kuma noolo dadka inta badanna hadda shalay saldhigga wadaag waxaa dhacday cid ayaa waxay keentay gabar waxay gabadhan waa nagala kufsaday wiilkii warkaas waa la wadaa oo la socdaa gabadhan weydiinay waxay tiri wiilka waxaa naga dhaxay shukaansi 15 maalin ka hor ayaanan is arkaynaa u dambeysay oo ku wada hadalnay daarsalan xaafadleena marka taasoo kale waalidkii waxay leeyihiin gabadhan waa la kufsaday iyaga waxay u raadinayaan dhibaato marka 15 maalin qof sheegay ka hor kulan u dambeeyay inta referta la siiyo hala socday suuragal naqmayso sababtoo waa ayadii ma jiray leedahay waalidkii oo jira hawley marka maxaa samaysaa
أنا مركز وده كان لبض اللي نوع إني إسكون وده هلان ما دام ماشي وهذا أنا ودم وحر هذا دم بواي دعي دم كده عينا وحقرب نقصيه دقاتير دقاتير مرة هدي أنا لولتي كريم شيء طول ما عليك هو إذا كانوا يسوي تجاني محيي يسوي شيء لولتي كريم مركز كاسو كلام ماشي سلسلة هذا مقرر وصول عمله مرة المركز يوم tushaale oo kale marka dadku ay saas oo kale u qarsadaan sababtana mararka qaar in ay wax ka qaban waayaan laamaha amniga sabab la xiriirto dadku dhibka qarsadeen saameyn intee la ay ku yeelan kartaa caafimaadka qofkaas maxaa sababaya qofka in uu dhibkii loo geysto qarsado bismillaah waxaan su'aasha intaan u guda gelin oo dhibka inay qofka qarsatay inay ogolaato horta waxaa ka horeyso dadku ma yaqaanaan horta meelaha ay u raadsanayaan caafimaadka iyo cadaaladda iyo wax walba qofka markuu ku dhaco dhibkan marka ugu horeyso isbitaal ma loo tilmaamayo because xanuuna haayo ama dhiigbaxa haayo isbitaalka meesha ugu horeysay aadayso laakiin naftirkooda ma yaqaan isbitaalada qaarkood oo si degdeg ah uga heli karaan arrimahooda caafimaad inay xaliyaan iyo kuwa kale because dhibaatooyinka qabsada waxay tahay isbitaalada qaarkood refertama bixiyaan sida hadda xaraal u sheegay booliiska ayaa bixiyo isbitaal Madiina isbitaal keedsanay ayaa aad arrimahaas uga shaqeeyo walow ay jiri jirtaba xataa mararka qaar mar hore qofka markuu dhibkan ku dhaco in dhaqaatiirta qaar ay u cadeynaynin dhib ku dhacay aysan dhihin qofkan waa la kubsaday iyagoo ka baqaayo waxyaabaha daba taagan buuqa iyo dhibaatada iyo ama qofkii dhibka geysto u hanjabaaya marka haddaan su'aashaada u soo noqdo waxay ahayd dadku maxaa sababa inay dhib ku qarsadaan dadka dhibka inay qarsadaan waxaa sababayso for example marka hadda isbitaal la yimaadaan oo la daaweeyo waxay ku noqonaysaa gurigeedii isbitaal kaliya waxa ma u qaban karo isbitaalka wuxuu ka qaabilay dhiigbax hadduu jirno ka joojiyo xanuunka uu ka daaweeya haddii qofkan 3 maalmood gudahood ay 72 saac in la kubsadana waxaa laga caawiyaa beebkida la siiyaa oo isku jir daawooyin ay ka mid yihiin qofka inay ka hortagto qofka inuusan infection qaadin sida cudurrada lagu kala qaado galmada inay ka hortagto qofka inuusan uur qaadin inay ka hortagto qofka inuusan STI qaadin cudurro kale oo la xiriiro sida galmada iyo uurka iyo maxay ahaytoy saddex oo ka hortaga koow qofkan 72 saac gudahood daa keento uur inuu qaado waa ka hortaga cudurrada galmada lagu kala qaadana waa ka hortaga infection kan waa ka hortaga saddexaas ayuu ka hortaga daawadaas waa mid daawadaas markuu qaato oo dhiigbixi wax laga daawo guriga ku noqdo wuxuu u baahan yahay cadaalad inuu helo u baahan yahay oo lala tiigsado hay'adaha amniga koow qofkii ma haysta marqaati qofkan waa la soo kufsaday ma haysta marqaati taas waxay dhibaato ku tahay kiiskiisa lagu guuleysan waayo waxaa kaloo dhib ku haayo dhaqanka oo raba in arinta meesha lagu ekeeyo oo aan la aadin booliiska la aadin oo aan maxkamad la aadin haddii qofka uu ka soo gudbo inuu qof fiican yahay caafimaadka tagay oo helo ay sheegeen marqaati uu taga maxkamadda iyadana marqaatigii ayaa maxaa ka daba imaanaya dhaqankii oo dhahay arinteena waaba dhameysanayba adoo waa midka ugu boqolkiiba hal marqaati markuu helo uu ku guuleysatay maxkamad in la istaagtay odayaasha dhaqanka ayaa dhahay arintan hoosa loo dhaqay sababtoo ah anaga hadda ka horeer hebla qofna kufsadeen waxaasaan ku daaweyn anaga daaweyn meesha ku ekaanaysa laakiin inta badan marqaati ma haystaanba sababtoo waa ogtahay qofka la kufsaday waxaa lagu kufsada meel mugdi ah meel cidla ah looguma talagelin qof kale ogaado marqaati haddoosan haysan qofkaas kiiskiisa meesha ku baaba'aya marka dadka iyaga naftirkooda la kulmaya xadgudubyadaasi jinsiga maxaa la gudboon in ay sameeyaan si ay u helaan kaalmo caafimaad tusaale kale haddii uu dhaqankii dabraayo uu leeyahay qofkii isbitaal ma tagi karo ama si xal mastuura lagu xaliyay qofka nafsadiisa maxaa la gudboon si uu kaalmo caafimaad u helo dhaqanka horta marka isbitaalka ma wuxuu diidaa waxay tahay arintan in maxkamad lala koro marqaati la raadiyo qof kufsada la raadiyo waxa soo diidaya laakiin qofka waxaa la gudboon inuu marka arintan ku dhacdo uu hay'adaha shaqada kula raadsado dhaqtar oo u tago kadib hadduu yaqaan qofta kufsaday ayaa amniga oo la kaashado ilaa heer maxkamad si qofkaas dambiga uu galay loogu qaado falkeeda sababtoo markaas waxaa yaraanayo kufsiga yaraanayo xadgudubka yaraanayo haddii laakiin in la qarsanaa la arko in la cabsanaa la arko in dadku wax loo qabanayna la arko waxaa badanayo qofka in kufsiga lagu sameeyo for example annaga haddaana bulshada rayidka waxaan aad uga doodi jirnay waxay tahay
qofkan la soo kufsaday markuu taga hay-adaha amniga boliiska markuu u taga ha loo helo gabar boliis ah oo maxay ahaatay arinteeda hoos ay ugu sheegato sababtoo waa dareemaytaa qofkan ninaa soo kufsaday hadduu nin u tago hawshii ma soconayso nasiib wanaag waa ku guuleysanay waa helnay gabdho boliis ah oo saldhigyada jooga oo la xaajoonaya ama gabadha arinteeda rabaa inay garabka siiyaan laakiin dhaqankiina uma ogolo iyada laftigeedana ma ogolo sababtoo waxay rabtaa in ay ku soo noqoto bulshadii aynan lagu ceebeysanin laakiin hay-adaha civil society-ga waxay ka dadaaleen inaan lagu ceebeysanin in aan la sheegin in aan la bumburin in sirteeda qofkan loo qori haddii boliis ahaan leedahay civil society ahaan leedahay inta xataa dacwada socoto ammaankeeda in lagu sugo safe house-ka ay leeyihin hay-adaha ka shaqeeya maamo Maryam oo iyadu SWDC ka tirsan qaybta ka qaata tacdiyadan sida looga shaqeyn lahaa ayaan rabnaa in haddana aan siino iyadoo aan rabay inay ka hadasho sida markay tacdiyada soo gaaraan xarunta SWDC looga warceliyo waxyaabaha kaalmada ah ay u sameeyaan dadka dhibaatooyinka la kulmaan bismillaahi raxmaani raxiim runtii maanta waxaa halkan isugu yimid qabiiro ama xil ogaal u ah ama ka warqabo oo ah bahda la dagaalanka xadgudubyada ayaa goobtan isugu yimid haddii aan idinka siiyo tusaale kooban qaabka aan u wajahno SWDC haddaan nahay waddada ay noo soo maraan sida aan u kaalmayno ama u garab istaagno markii dhib ku dhaco shaqsiga horta awalan SWDC waxyaabaha ay ku guuleysatay oo ay ku horumartay waxa ugu badan wada shaqeynta bulshada nagala dhaxaysa iyo booliiska 17 degmo ee gobolka Banaadir degmo aan xiriir shaqada SWDC ay qabato la lahayn ma jiro saldhig aanan xiriir la lahayn ma jiro bulshada deegaanada degan saasoo kale waa nala adeegaan waa nala kaalmeeyaan barakacayaal sidaas oo kale dhib kasta oo soo dhaco hay-adeena waa loo soo gudbiyaa taasoo ujeedadeeda ay tahay inta badan waa ka jawaabnaa haddii uu qofka sideedaba dhib markuu dhaco oo dhib yimaado hay-adu iskama dhihi karta dhibaa dhacay waa inay sabab iyo waddo u soo martaa dhib hadduu dhaco awalan waxaa iskala shaqada in boliis la helo warqadda dhaawac muujinta ay timaado markii warqadda dhaawac muujinta la helo ayay waxay suuragelaysaa in kiiskan oo warqadaas dhaawac ku cadaado in kiiskaas la daba galo kiiska markuu intaas helo maxaa hakin karo waxaa hakin karo 3 arrimood marka koowaad qofka dhibanaha ah oo arrimo abni inta u baqa aan dib u sii raacin kiiskiis waxaa hakin kara oo kale iyada oo la waayay dhibanaha hadduu saldhigga waayo waxba uma suuragalayaan haddaadan dhibana wadin eedaysna waxba kama tiri karto because qofkii dacweyn lahayda la rabaa anoo boliisaan wada waxba kama qaadi karto waxaa kaloo inta badan helo dadka oo aan waaye arag u ahayn in ay ku adeegaan sharciga oo markaa hooyadu waxay ku leedahay anigu waan xamaalan lahaa meelaha aadi lahaa inaan subax kasta u soo kalo saldhigga oon imaado dan iimaa waxaa intaas ka sii dheer oday dhaqameed daba socdo dhibkii ugu jeedo oday dhaqan inuu inta yimaado yiraahdo wiilkan anaa ka taliyo qoyskan anaa ka taliyo xiriir dhaqanaana dhex yaalla hal ii fasax bismillah aad u mahadsan tahay horta booliiska qasabay ku tahay waa wax waajiba inuu tago goobta uu dhibku ka dhaco sababtoo ay tahay cadeymaha marka laga reebo inta dhakhtarku uu soo cadeynayo maahine inta kale meelaha laga heli karo oo markhaatiyaasha laga heli karo waa meesha uu dhibku ka dhaco dadkii hadaysan meeshu meel ay ahayn mar haddii magaalo tahay waxaa qasaba in dad joogay in laga helo raad wax meesha ku dhacay oo dadka labada qofood midkood ka haray horta waa qasab meesha in la tago haddii dadkii dhibaniyo noo imaan la soo sheegana waa qasab sababtoo ah kufsigu ama tacadigu waa kiisaska ugu adag oo dhaca ayay ka mid yihiin marka meel dil ka dhacay oo naf lagu gooy sidii loogu gurma lahay si lamida ayaa loogu gurmana dadku maxaa iska bedelay booliiska ku qabeen oo ah inay dhibaatada la wadaagaan wax badanaa iska bedelay sababtu waxay tahay hadda midda u dambaysan kuu sheegayay waa
ayagaa la yimiday oo socday iyadoo raads oo jiray taasi lamida markuu raad ku jiro waa qasab qofka ayadoo la aflagaadeeyay qofka soo dacweynaad arkaysaa aflagaado kaliya marka dhibka weyn iyadoo dhacay lagama yaabo inuu qarsado sababtu waxay tahay waxaa hadda shaqeeyo garsoorka oo dhan waa kiis kastoo dhacdo waa lagu weydiinaa kormeera imaanaya maalin kasta oobigaan qofka ku qoran waa laga qoranaa bishii ama isbuuci waa lagu weydiinaa marka waa qasab maadaama isla xisaabtii mido qof kasta oo ogaaday in maxkamad la geynayo wax badan iska bedelay dadku inay soo sheegtaan oo yimaadeen saldhig aamina maxamed cumar gudoomiyaha haweenka ururka degmada waa beri fiiriso dhibaatooyinka ka dhacay tusaale degmooyinka gobolka banaadir dadku waxaa laga yaabaa marka hore inay cabsi xoog leh qabeen inay dhibkooda iskaan ama gabadhu waa markaas waalidkeeda ay la wadaagto marka waxyaabaha dhibaatadan dhaqan sababta ay tahay waalidkeedu marka qaar caruurtoo dhibka loo geysanay in xiriir wanaagsan ka dhaxeynin oo laga yaabo gabadha inayna sheegi karin qofka dhibaateeyey sabab la xiriirta waalidka uu ka baqaayo ama waalidkii naftirkiisa uusan ilmihiisiinin firaaq ah inuu la wadaago marxalad uu ku sugan dhacdo hadda dhacday oo kufsi ah jirto oo ka dhacday xaafadda Xamar Jajab gabar laga wato waa beri waa 12 jir waxaa la geystay Xamar Jajab si xunaa loo soo dandareystay gabadhii iyadoo dhibaatadii qabto aynan ogeyn cirbid la duray suuqsan tahay aniga 4 waaxood gabdhaha degan 100 gabdhood waa SWDC tababartay 100kaas gabdhood oo SWDC tababartay aniga 199 gabdhood 4 waaxood kala degan 25 gabdhood xog waliba wixii ka dhaco xaafadaha 4 waaxood iyo 77 tabeele ay ka kooban tahay degmada waa beri xogta qofta ugu horeysa oo kaliya heshaan isla markii soo gaarto warbixintii waa la ii sheegay gurigay gabadha taala la ii sheegay saldhiga waa beri aan la xiriiray waa baxay mootaan qaata meeshii aan tagay anoo meeshii jooga gabadha inay ku jirtana hubsaday kortaaganaan ciidankana oo yimid khayr Allah siiyo Yaxya Muuse baaraha saldhiga degmada waa beri khayr Allah siiyo waa ninka kaliya isku xiraha ah adaa SWDC la shaqeeyo gabadhiyaan soo qaadnay ayadoo googo'an si xun u googo'day soo qaadnay saldhigaan keenay boodka laga qoray isla markii isbitaal Madiina keenay waa la daaweeyay daawooyinkii waxay qaadan karto waa qaadatay ninkiina gacantaan ku soo dhignay isagoo intuu baxsaday guri kala tagay waa inaan siyo qof walba si uu soo gabagabeeyo si xal waara looga gaaro waxyaabihii aan istusnay iyo dhibaatooyinka aan ka hadlay qaybta booliiska markaan ku bilowno maxaa la gudboon ayaad isleedahay booliiska inay sameeyaan aada u mahadsan tahay markii la rabo waxaan in la soo afjaro waxyaabo badanaa loo baahan yahay kow horta qof kasta oo dhibka noocaasa ugu talagalay inuu sameeyo u bareeray horta inaan wax xala laga gelin oo xaqa ciqaabta uu leeyahay oo maro sidoo kale in la sameeyo ciidamo booliisa oo meelaha dadku inta badan ay isugu yimaadiin looga sameeyo rugo sida suuqyada xarumaha qaxootiga iyo goobaha loo dalxiis tago maadaama meelahaas bulshada u badan yihiin la geeyo ciidamo oo rugo yaryar laga sameeyo ciidankaasuna uusan ahaan ciidan ma tahay uusan ahaan oo ahaado ciidan lala xisaabtami karo oo anshax lah sida uu tilmaamayo qodobka 127 ee dastuurka kumeelgaarka ciidanka uu tilmaamayo ciidan ah waa in la geeyo meelahaas sababtoo ah ciidan kasta la iska geeyo ayaga laftirkooda wax ka dhalan kara laba og marka qof anshax leh oo wanaagsan oo wax kasta la weydii karo in meelaha bulshadu ay u badan tahay la geeyo labadaas shay
ayaa muhiima in la sameeyo loo hortagi karaa saasaan isla loo soo afjiri karaa aad u mahadsan tahay Axmed Cabdi Cumar oo ah agaasimaha waaxda xuquuqda aadanaha ee wasaaradda Axmed waxaa leedahay tacdiyada iyo dhibaatooyinka ka caawiya xadgudubyada waa loo xiri karaa shuruucda hadda si hortaala baarlamaanka ma fududayn karaan in waxaan laga soo baxo oo la aniga qaabka ka hortagidda waxaan rabaa inaan ku soo koobo 3 qodob iyo wixii kale oo aan ku daraayo waxa way horta bulshada inay ka gaashaamato iyadoo isku xiran oo yani bulshadu hor marka dib ku dhacaba degdeg ay ku timaado gobolka imaanayaan in 3 maalmood ku soo dib marin sababtoo arrimahaas waxay ka anfacaysaa in laga hortago cudurrada ku dhici lahaay waxaan kaloo ku wacyigelinayaa dadka marka dibka ku dhaco in aynan meesha dhaqdhaqin sababtoo ah dhibaatooyinka aan la kulanno waxay tahay mar walba qofka hadduu yahay qof oo haween guri leh ama calaamado kale laga arkaynin in is soo dhaqdo oo wixii lagu cadeyn lahaa meesha ka baxaan haddii ilmihiin xataa waa la soo dhaqaa waxyaabo badan naga caawin lahaa haddaan la soo dhaqin dharkii lagu kufsado kale qofka inuu ugu jiro si loo cadeeyo sida ku cad barnaamijka cadeyntiisa waxaa ka mid ah physical and psychological qofka maadaama u gaaraan wuxuu ka mid yahay waxyaabaha lagu cadeeyo qofka in la kufsaday waxaan kaloo aad iyo aad ugu boorinayaa markii hadeeba timaado goobta caafimaadka waqtiga aan u sheegno fiicneed haddii laga hortago waxyaabahaas oo dhan haddana in ayna meeshaas ku ekaynin qofku bil kadib 2 bil kadib baaritaano marto sababtoo waxaa jiro marka koowaad waxyaaba inaan la arkin laga yaabo marka la baaro oo bil kadibna la arki karo cudurro kale inay ku dhaceen qofkaas oo galmada lagu kala qaaday marka waxaan kaloo aad ugu boorinayaa caafimaadku ma aha lacag lagu muxujiyay qofka la soo kubsado lacag inay keenaan kaliya cisbitaalada kaliya xataa ma ahan goobaha ugu dhow ee ka shaqeeyaan ururada bulshada rayidka ah ee ka tacaala arrimaha kufsiga iyo waxyaabahaas ku saabsan ee ku yaala meel ku dhow laga yaabo IDPska aad degantahay inuu ku yaalo laga yaabo degmada aad degantahay inuu ku dhex yaalo meelahaas inaad tagtid sababtoo ah kaliya ma aha meesha la isku kufsada IDPs dadku waxay u yaqaanaan kufsiga inuu ka dhaco meelahan ka baxsan magaalada kaliya ma ahan waxaa jira kufsiyo badan oo aan laga wareen oo guryaha dhexdooda ka dhaco dadka waliba isku maleeyo inay fiican yihiin aweerkooda oo sareeyo oo guryahoodana ka shaqo tago ma oga ilmahooda xaaladda ay ku sugan yihiin waxaa laga yaabaa dadka la nool oo gurigaas degan haddii qaraabo tahay ee daris tahay inay ilmahaas u geystaan falal tacaddi ah mana fahamsana dadka marka inay ilmahoodana waxaan ku soo gabagabeynayaa dadka degan meelaha safeka ah ee ka shaqo taga ilmahooda hooyada aabaha ka shaqo taga inay ilmahooda aad iyo aad uga taxadiraan inta ay ka maqan yihiin waxa ku dhacaya inay ogaadaan sababtoo waxaan aragnay dad badan oo ilmahoodii ahaynba dad laga filanayo ilmahooda la kufsaday laakiin kufsi joogto ee lagu hayo hadday ahaan lahayd faamiliga hadday ahaan lahayd dariska dadaan laga filanaynin intaas waan kusoo gabagabeyn lahay waa maadsantahay aad u maadsantahay markan waxaan rabaa inaan ku soo xiro Maryam Taqal oo ka tirsan SWDC ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad u dirayso bulshada si waxyaabahan ay ku aadan tacadiyada ka dhanka xuquuqda aadanaha gabi ahaanba loo soo gabagabeeyo bismillaahi raxmaani raxiim runtii horta waxaan uga mahad celinayaa dadka maanta waqtigooda qaaliga ah soo huray wariyaasheena noo taagan oo raba inay bulshada gaarsiiyaan waxyaabaha annaga naga soo baxo haddii aan ka SWDC ahaan ka hadlo qaabkee waxaan uga qaban karnaa una gabagabay haddaan horta isku duubni dhicin oo aan bulshada iyo hay-adaha amniga iyo hay-adaha ka shaqeeyo aysan gacanta isqabsanin horta waxyaabo badan ayaana looga guulaysanayaa dhibkana weligiis waa jiraaya shacabkeennana annagaana laga rabaa inaan dhiirigelino wadaniyada ku abuurno la dhahno tuuga la dagaalam dhibaatada iska difaaca hal la midoobo siday doctoraysa Maryam u sheegtay meelaha aan wax ka filayna meel ka hooseysa ayuu dhibkan ka yimaadaa dadka guriga iskula nool dhibki ka yimaadaa qaraabada la soo aruuriyo dhibki ka yimaadaa darisku ka yimaadaa inta badan bulshadeenu waa xamaalato hooyadu waa baxdaa aabuhu waa baxaa caruurta halkaas waxa uga dhaco dayac badan
marka hooyo kasto iyo aabba kasto waxaan ka codsanaa horta xilli kasto ay hooyadu timaado inay caruurteeda dib u eegto dhan kasto u baarto si ay u ogaato lana sheekaysato marka qaarkood caruurta markay dhahaan hooyo hebel wuxuu yidhaha naga aamus alaliya dadka dhexdooda ku hadlin caruurta waxbay u dhintaa eragaas ha dhihin weydii hebel muxuu ku dhahay hebel xagee aaday cunuga haddaa la sheekaysto saaxiib la noqoto xog kasta oo kusoo dhacda kuu sheegaa laakiin haddaa raacdayso kuuma sheegaan marka aan abuurno feejignaan iyo isku xirnaan inaan isku xirannahay kuna dadaalno annagoo wasaaradda haweenka ay nala joogto ururadii bulshada nala joogaan degmooyinka nala joogaan ciidamadii biliiskana hay-adihii caafimaadka joogaan ujeedka kulankeena wuxuu ahaa see wadajir looga hortagaa xadgudubna uma qodmo bulshada haddaanan anagu u adeegin waxaa ka faa'iidaysanayo nin kasta oo necab horumarka bulshada aan ka shaqayno horumarka bulshada shakhsi kastoo necab saan ola dagaalami lahayn kuwa sharciga diidaya saan ola dagaalami lahayn kuwa cadaaladda ka soo horjeeda saan ola dagaalami lahayn cadaalad darrada qofka ka shaqaynaya saan ola SWDC intaasay u taagan tahay dadka aan codkooda meel gaari karin inay gaarsiiso waa mahadsantihiin waana idinkaga mahad celinaya guud ahaan sidaa noo aqbasheen noona qaadateen fikrigaasna inaan ku wada shaqaynaa idinka codsanaa idinkana rajaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad u mahadsantihiin waa inii mahad celinaya idinkan sida quruxda badan uga qayb gasheen dooda waxay ahayd Maryan Taqal Xuseen oo ka tirsan SWDC una qaabilsan arrimaha haweenka iyo xuquuqda aadanaha sidoo kale Axmed Cumar oo isagana ka socda wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ahna agaasinka xuquuqda aadanaha ee wasaaradda degmada Waaberi iyo Maryan Axmed Maxamed oo ka tirsan hay'adda IIDO arrimaha horumarinta haweenka ka shaqeysa qaybna ka dhaqaatiirta Soomaaliyeed anigoo Nasriin waa idin la socodsiinayay kalkaaliyaasha Soomaaliyeed anigoo Nasriin waa idin la socodsiinayay waadna mahadsantihiin martida iyo waliba bahda saxaafadda